sideed iyo toban gudoomiyaa la keenay hargeysa ka wada yimaadeen 18 ku-xigeen baa la sameeyey waa reer waa Samaroon oo iyaga maxaa u diiday inay gudoomiyaa noqdaan maxaa halkeena yeelay maxaa wax u hanan laana waxa weeyaan qofku markuu isku kalsoonin dhibaatadaas ay jirto maxaa ku diiday ninkan qeyrkay wuxuu rabaa inaad qaadatid hortii taa waxa lagu gaari karaa waa midnimo qora dadku isku duuban oo midaysan baa lagu gaari karaa marka waxa weeyaan midna hal iska ilaaliyo inteena meesha joogta maanta meel ma isku nimaadna Soomaa magac baa inaga dhaxay nin waliba wuxuu ka dhashay reer ilaahay baa ka dhilmaadaad waqti waa maya laakiin tafiiq qura ka dhaxay Samaroon magac Samaroon ma ku wadaagay Soomaa wax kaas waa lagu kala tagi karaa siyaasad waa lagu kala tagaa dood waa lagu kala tagaa lexjecel waa lagu kala tagaa laakiin toonimo lagu kala tago dadka kale arkaysaan wadannada kale jaarkeena arkaysaan markay dan guud tahay waa mid hoosana way iska dhacay innaka sanaakiinteeni waxa weeyaan dan guud ayaa naga maqan dantii guud ma fahamsanin wali waqti badan inaan haysan baan malaynaa waayo maanta waqtiga kale guurka waa inaan ka faa'iideysan waad ogtihiin dhalinyaro intiina halkan joogta maayna rag badan asxaabtiina ayaa jiray oo soo wada socoteen ama soo wada taxriibteen oo qaarkood badda ka iman ay ku maqan yihiin wax la isweydiiyay moogta waayo hadduu dhulkiisa wax ku haysa ma soo baxeen Soomaa maanta waxa weeyaan nimcada dhulkaygu leeyahay iyo khayraadka ku jira haddaan la soo baxin waxa inaga badan wala inoo soo shaqeeyaa waa buugaad innaka la inoo soo shaqeeyaa oo dhaxamahan iyo dacwadahan iyo waraaqahan maalinta soo boos ugu jirta walaga haysanaya taas lagu gaariyaa weyn meesha maanta waxa weeyaan ninka Samaroona xog uma aha gurigiisa waayo waa wax ma qadis wax اختيار ليه waayo guriga free samays rag badan waxa jira in halka fadhiyo dhalinyaro ahaan iyo ku daaya waddankeena meelaha la geeyay loo hay saacada loo ilaaliyo waqtiga la seexanayo waqtiga la quraacanayo waqtiga la qadaynayo Soomaa maanta taasaan ku jirnaa waa container baan ku dhex jirnaa albaabku furan yahay haddaan salaakiin ka soo bixi weyno oo waqtigaa gaaban ka faa'iideysan weyno ee container waa lanagu xidhay furahana waa la qajeebka lagu dhigtay mid inaan iska ilaalino wey horta mid inagama dhexayso inaan iskala qaadqaadna inagama dhexayso way jiraan dad waxaa ka shaqeeya oo lagu soo adeegsanaya wuu jiraa waayo ninka raba inuu ku dilo adi toos kuguma imanayo ka kugu xigu ku soo raacaya ka adi kugu dhow inaad ka shakisnayn buu ku soo daacaya mid waa inaan iska ilaalino kala qaadqaad waa inaan iska ilaalino war magac quraataan leen magacaas ay naga dhaxay ka inaan iskugu heelinaa meesha magaca Samaroon inaan iskugu heelinaa meesha inaan la isweydiiyo maaha dhalinyarta meesha samaysay waa ay iyo madaxa ya reer ku lahataa wata waa cayb war waxa yaa leeyay ka dhaadhicin ka wax sameeyay waa ni Samaroon ka wanaag sameeyana waa idinka inaad ininku isku duubataan oo isku duubnaatiin baa muhiim ah ininku haddaad isku duubnaatiin wax weyn baad qaban karaysaa markaas waxa weeyaan waxaan rabnaa in aan dhulkeena xoreysano dhulkeena sideen xoreysan karnaa way
waxaan u xoreysan karnaa waa isku duubnaan waa midnimo waxaan u xoreysan karnaa maanta dhulkeenu haddaan gacanta ku dhigano waxa weeyaan gurigaaga furaha aad haysatid adaa ikhtiyaar u leh haddaad ku daragtid iyo haddaad ku gaajootid adigaas kale marka awdaysid wax kale umay jirin wax kale umay jirin waxay u kacday oo qura in dhibaatada ina haysata aan ka wada baxno intayna dhulka joogno waan noolaan karnaa intu ilaahay noogu talagalay haddaan xeerka dhulka u hogaansanaano oonad qalad waddanka ka gelin waad ku noolaan kartaa waxbaad baran kartaa waad shaqaysan kartaa guryahaad iibsan kartaa waxaad dadad ka noqon kartaa adiga raganimada laakiin halkan adigu milihi halkan transit baad ku tahay halkan marti baad ku tahay marka martinimadaadaas ha iloobin meeshaad ka timid adigu qofka nin waa inuu isweydiiyo halkeen joogaa halkeen ka imid iyo halkeen u socdaa saddexda qofku markuu isweydiiyo nolosha uu fahmaya halkaan ka imid hadda halkaan joogo iyo halkaan u socdo waaba saddexdaa shay waxa weeyaan dhalinyarta idinka ah mustaqbalka waa idinka annaku berri markaan dhulkii geyno dowladdan idinkaa gacmaha ku qabsanay hana ku fikirinaya annaku sida dowladda afrikaan ku dhegsanayna kursiga waa maya ballanteedana maaha dowladdan awdal state maaha ballanteeda madaxweynaha iyo dowladdu waxay ballan ku qaaday markaan dhulka iyaga xoraysano dadka dowladdeena qof male madaxweynuhuna male madaxweyne ku-xigeenku male ra'iisul baarlamaanku male wasiiradu male samaroon baa samaroon oo dhan bay ka dhaxaysaa iyadaa taladeeda diinta islaamka waa saddex nin hadday meel safreen mid madax ka dhigtaan markaa dowladdu waa madaxii laakiin inta kale waa wax samaroon leeyahay awdal seed ninka inuu yidhaahdaa reer baale waa been buu inii sheegay laba reer baale been buu inii sheegay saddex baale waa been buu inii sheegay laakiin ninka ku yidhaahdo waa dowlad samaroon waa runtii kaasaa run buu sheegay marka waxa weeyaan dhalinyarta waxbaa la iska dhexlaa taariikh baan lahayn tarniya qarnigii 13aad taariikh baan lahayn oo dhulkeenu taariikh buu lahaa way qoran yihiin waxaa laynagu hayaa waad ogtihiin dhulka waa boob baa ku jira waayo dee gurigaaga haddaad ka seexatid oo toddobaadkii aad nadiifin weydi dee guriga waad meel das baa ka kaca meelaad ka seexatay meelaysid maanta waxaa la iskugu wada tegey 100 nin oo samaroon meel joogta hadaad war xageed ka timid boormaanka ibdu kule meel kale ma sheeganaya waa cajiib xaafad quraal isweyn war maxaa kuu diiday inaad tiraahdi war aanu saylac baan ka imid anu lughayaan ka imid anu boon baan ka imid anu waxaan ka imid toqoshi baan ka imid anu jabuutaan ka imid maxaa kuu diiday boormaan ka imid war xageed ka timid boormaan ka imid dhulkii kale de sidii looga soo ordayay waa ka wala wada qaatay hadhow maaha inaad tira dhulkii baa layga qaatay waayo adaa doo baneeyey midna waa laguu degay marka dhaqaalihii lagaa xidhay ee meel qura lagugu ogolaaday dadku way ku qasban yihiin inay tagaan waxaa ka mid a 20kii sano u dambeysay dagaalkii markuu dhacay dowladda dhexe dikadda way furnayd dikadda zeylac shaqaalaa jiray dad baa ka shaqaynaya beeraa jiray makhaayalaa jiray waxbaa kala socday waa la arkay bishaas inay furantay waad ka hadliyey dayaaradda boorma soo fadhiisanaysay hay-adaa jiray oo kuwana waa sii socdaan bale waa lagaa qaal waad hadli weyday waa dharbaaxadii labada ugu dhacay hay-adihii baa lagaa qaadi waad hadli weyday waa tii saddexaad marka waxa weeyaan dee waxaad sugaysaa marka lagu soo feero haddaad tiraad aabbahay baan soo weydiyey inaan ninkaas ka celiyo sababtoo dhacayda
أمريكي يفعل معها ونقرأ في السعر فأنا كمان طلبة كبايب أنا واحد قرأ زمان لا يقول هو سوقي يعني لا سوقي أليس مرة ما يسأل سوقي لكن مش سوقي وحلو رجلي سمرون كاجو كراي جهاد مكر ويسرقت إمك جهاد دي مقاتل جاجد مقاتل لا والله جب يا ويسكو قليل أبارات جرا أبارات شخص أبارات تبصن وأبارات دماني واحد جرت صوت درا واحد صوت درا وعندك كلا لقاوي مركا وحويان إن الحضارة دي أضلحيد أدو إسكالها هاي ونقفنا كلها الله سوى بحد بلو بعيا إمك وقت واحد جونا كالبورة وادو قيدين ما أنت وقت كان جوجنو دولة أود الستيت أو صوماليا أنت أي جرتو تانية ما أنت اللي قد واقع والسنة يلبات الضباب سنة يافر 28 معلمتي الدولة دلها بالسي إلا مات وبشافر أفر بلود بنسل دولة دهان واد أوجيدين سنة كبيلة وبيسي إن ومدحوينها إيو وزير الخارجيه عدو كي كدا دقين حمر تقين ليس مالا هاي ويتقين ورما تقي كريسين بل تيفيه دو أنا لوعي وحكا سنة لوير دقو من دقين والذين حد جلال بالله يدي كوكو قري سيكا سالة نوران ولا تقي كينيا لا تقي حمر بالغو حجسية الديس بالغو سو حجسية وايا انت محل لو سعدا وحويان ان السياسه هامبل الاورن ودوله خربوبيره يا لا باش دواعي درو دوله خربوبيره ان اين اهي ولا تصل وايا سمرون تاريخ ولي لكن اسلم تاريخ دي waxa weeyaan la bisay waan baxay waana soo galay taariikhda waa labada sano laakiin taariikhda aan anigu leeyahay ee adigu leedahay waa qarniyaal wayna qoran tahayna waxa weeyaan imika ahaan weygii siyaasadeed amba barashadii waa layna wada bartay qof kasta haddaad weydiisid awdal sid waa la garanaya google haddaad gashid waad kala soo baxaysaa maxaase loo baahan yahay mid qura loo baahan yahay waa inaad waddankaaga gacanta ku qabsato dhulkaadaad ka talsataa dhulkana waxa weeyaan waxa la yidhaha odayadana haysta aan ma ogin taa ma rumaysin waayo de aabbahay hadduu nacasoobo u cabsoodo waxa weeyaan mar waxaan joogaa waa tale beent mar bay xalaasha markaad naf ku badbaadinaysa laba nafood oo isdili markaad kala badbaadinaysa inaad been sheegtay markaa lagu ogol yahay Soomaaliya dadka diinta yaqaan de maanta waxaan joogaa halkan aan joogaa maanta aabahay waxaan leeyahay raalli ah sii fadhi adigu anaa ku xoreyn hadaan isxoreyn adigu de tobankiina haddaad soo raacdaan boqol dhalinyaro hadday soo baxdo suuqa boorama wuxuuda la soo baxdo ilaahay waxba dooni mayno de boqolka ma baas baa la wada marin boqolka ma qura ma la wada qaaday jeelka ma lagu dhumi amay waayo adiga maanta wax ka burburay ma haysid laakiin maamul goboleedka Hargeysa isaga dan nabadu dan ugu jirta ani nabada dan iguma jirto ma waxyaba dan nabada daara laga burburay ma haysid bam hadii lagu dhufto jidad laga jijibin ma haysid tikada laga jijibin ma haysid diyaarada laga gubay ma haysid bangiya laga dhacay ma haysid de intaas oo dhan halkaas shay jirta waayo أدانا جيد أدا جيد دولها وايو دولك سوات الخالد مركل لو قلت هلا قال إن الدقالة أو كست اللقاحرة وحل أوجي هاي إن أتباهي منيست لأني كباها أنا ما أنت نقعد بقول دولار سيسي ترى هذا ولا الكيس سو خارج وقوس خارجني واي باهي ما ماشي تي تاس ده لقى بحكي راوي ولا
waxaa lagaga bixi karaa qura waxa weeyaan in aan inaku isku tashano rag iyo dumar in aan inaku isku tashano oo la odhan war Samaroon wuu gartaay ma karo baa lanagu xitaa waayo talada wuu keenaa madaxweyne kasta oo tagaysa isaga dacwadaha isaga u qoraya wax kasta isaga u hagaajinaya waa lagu shaqaystaa warda maanta waxaan taagan waqtiga aan khalaas dhabarkii la igu rarayay dhabarku wuu xoray hadee toona rarkii ma qaadi karo rar ma qaadi karo yahay rarka markaan iska dhigo han iska dhige waa inaan sababtaan u dhigay aan ficilkeedii la imaado waad ogtihiin dhalinyar baa tihiin mustaqbalka waddankuna waa idinka mustaqbalka dawladdu waa idinka waddankasi wuxuu qani yahay markuu dhalinyaro leeyahay ayuu qani yahay waddankan aan joogno waad aragtay tvdaad ka aragtay rentada waxaa la yidhaha 760 laga dhigo 560 laga dhigo waa la isku haystaa waayo wax soo koraya way yar yihiin wax dhalanayaan way yar yihiin waayo dadkan gaboobaya lacagtooda waxaa bixinaya dadka shaqaalaha lacagta laga qaadayo cashuurta sida awgeed baa leeyahay sanado siyaada sii shaqeey si ayna meesha isku dhimin waa inaka laakiin guri kasta 10 baa ka soo baxaysa oday 10 buu leeyahay saddex dumar uu leeyahay mid iyo 10 u tir waa 30 ya adiga waa laba guurso iyo 10 baad keenay waa konton wax socda shan walaalaha daatiina kaba sii daran waa 500 qof marka radada ma dhamaan marka waxa weeyaan waxaan nahay qani waddan qaniyaana gobolkeenu waa qani taas nin loo sheeg waxa qura la isku haystaa ee la inoo boobayaa ee la isku keendiraya waxa weeyaan sayna madax sare ugu qaaday waxa la rabaa in adigoo soo jeeda oo soo jeedo xayya in dhulkaaga laga qaado waxa lagu ogolaan waxa lagu dhibaato yareynaya sidoo bixi lahayd sidii aad magaalo kale u tagi lahayd waa lagu dhib yareynaya dhaqaalihi waxa kale laga joojinay waxa lagu leeyahay hadda okay waad helaysaa waxaaga waa si meeshii lagaaga kaxsado taa waxa u baahan tahay laga fikiro odayada hadalkooda waxa weeyaan tala waayeen waxa la waa muhiim haddii laakiin ku anfacayni maanta qarnigii 21aad baan joognaa odaygu waa muhiim waa waalid horta koow oo Samaroon ma lihin waxa la yiraahdo waalid caaq ma lihin oo waalidka diinta abi ma hayno sadadka kale adigoo 10 caruur leh haduu abaha kula hadlo waad fadhiisanaysaa marka la hadlayso saruuma eegaysa marka waxa weeyaan waa waajibkiis de waajibka uu ku saaray dhulku waajibka saaray ciida aad u dhalatay iyo waajibka saaray ee leedahay nin reehbel nin Samaroon aan dhulka baan degaa aawo dhulka degtay haddaan dhulkaagi haysanin aad ka talinay aanad wax uga turjumaynin aan khayraadkii ku jiray kala soo baxaynin oo lagaaga turjumayo oo dhulkaagi ku tahay marti wadabaato ciidii alleeda aniga iska daa awowgay baa ku dhashay marti ka tahay oonad ka hadli karin oo lagu xukumaya waayo ala siiyay dacay dalolada adu ka helay haddaad mar hore iska diidid maanta inta lama gaareen haddana waxa weeyaan wax tagaysiimaan male hadda maxaan qabsan karnaa baa muhiim waxaan qabsan karnaa waxa weeyaan dhalinyarta dhulkii joogtaay bal soo garanaya waa diyaar inay wadukooda soo dhitaan laakiin garab u baahan yihiin kaliya wax ma qaban karayaan kelidoodu waxa ma qaban karayaan waayo ka quraatay dhaqdhaqaaqa waa ay wala soo tooyay in hebel loo yeeray wala shaqo geynaya tuutoon shaqada uga baxaya waayo way ku qasbaysaa baahi baa taala meesha
marka waxa loo baahan yahay inaad ininku dhalinyarta dibadda joogta iyo dhalinyarta gudaha joogta war maanta mid kasta internet waa telefoon la wada sagacanta Facebook ya jira masar waxa lagu xoreeyay mobile baa lagu xoreeyay Twitter baa lagu xoreeyay iyo Facebook baa lagu xoreeyay wadannada dictatoriyada ka jirta ee laga maxarimay in ay tagaan dadkan journalistku tagaan haddana wararkooda waa la helay si kaas lagu helaa waxa nin tuurlis tabu saxdama waa hadday waxani ka go'antad qadiyadani dhabka tahay waad samaysan kartaa markaas waxa weeyaan su'aalaha qabtiin oo dhan diyaar baa inagu ahay mid baa salaakeeni sheegay waa dhulkii ma qabsanaa oo ma is xoreynaa de misraciyadan baan hana waa su'aasha meesha anu waa su'aasha inii weydiinay wey ma dhulkii baan xoreysanaa oo de dad xora iyaan hana de misraciyadan ma ku jirayna waayo nin baa jiray madaxweyne ugu horeeyay ra'iisul wasaare uu ahaa wadankii la oran jiray Zaire la oran jiray nin wuxuu ahaa wadani runa qadiyada wadanimadu ka go'an tahay dawladdii markaa ka jirtay ee gumaysiga la shaqeynaysay yaa aragtay ninkan inuu nin yahay halis gelinaya wax kasta ku soo ogeyn dambi ka saalo rasuuli waxa la yidhi ninkan gaalka ah markuu soo galo kursiga uga kac uu diiday baa lagu karbaashay jeelka la xidhay dambi baad xaday wax baad xaday marka lagu raba inaa gudaha lagu dhigo waxba lagu mooyay dambi lagu mooyay waxa lagu kari waayay in uu markuu gaalku soo galo jilba joogsado maxaa uu diiday laga yiri wuxuu yiri waxa ay dhaanta buu yiri tiyo madaxay kor u taagan yahay in aan dhinto iyo intaan ku noolaanay madaxayga waqti kasta foorada oo dhinacna markaan ka foorsado waxa ay dhaanta anoo dhinta madaxayga sare u taagan oo labada indhood mid kasta toos ugu arkay inaka tiiba taagan maanta haddii la yiraahdo waxba la sameeyay daracad baa la keenaa aqalada la karaya fadhi ku dirna waan badan nafta wayna waxa la qabtaa wayna san la sameeyaa fadhi ku dirta xarfaan baa odayadu naga sii xariisayna website safarta loo way yaqaan safarta loo way yaqaan teeda kan marka dhalinyarta waxa looga baahan yahay in ka fadhi ku dirka iyo ka farta loo laayayba waxa weeyaan meel midaata ma socona wax midaata ma doonaysa laakiin waxa weeyaan biyo meel go'an baa isku tagaa biyo meel godan ay isku tagaa inaka marka maanta waxa la naga dadkeena dibadda joogta ee qurbaha jooga waad ogtiin wax dhaqaale la yiraahdaa dhulkii ma yaal oo dadkii dibadda laga masruufa nin waliba biil mudira ku in yar dira iyo ku in badan dira wala dira ku walaalkii jaamacad dhigto ku waalid wax dira ku reer wax dira gacanta way socdaa waxa waa la nuudo inaga dhargay waayo waxa taa keentay dhibaatada meeshii taa marka dhulkeeni sideen u xoreysan karnaa waa su'aasha meesha taa hal mar ma ku xoreysan karnaa sumidaad inagoo dhulkeeni hanana ayaan ku xoreysan karnaa taa hanashaduna waxaan ku hanan karnaa inagoo wada jirna oo meel qura ka duulayna meesha ka duulayna hana qaato meel qura ma ahaan kartaa waa meesha samaroon ma ka duulayna waayo awdal state waa samaroon way waxaan ku abtirsanaa waxa weeyaan waa samaroon waxaan ku abtirsanaa wadankan aan joognaay waa 16 gobol waa 16 gobol ayuu ka kooban yahay 16 gobol ayuu yahay Jarmal 16 ka gobol waa wada Jarmal calan ku dhaatay leeyahay laakiin gobol kastina calankiisa iska leeyahay gobolkaasi gobolka kale nin shaqaale uu iman karo ka shaqeystaa maxayse laakiin ku abtirsadaan Jarmal innaka marka maxay noo diiday inaan ku abtirsano war samaroon baan maxay noo diiday on danaheena ka tashano
waayo maanta intaa baan iskugu dhiminay dee sanadka hore la iskugu yimaanay baan u malaynaya intayba waa faa'iidoon danteena isweydiinayno maxaan qabsanaa oon wax isweydaarsanayno oon fikrada kala qaadanayno waayo waxaa la yidhi fikradda kaa maqan walaalkaa bay ku jirtaa anigu dee dowladdii haddaan naan idhaahdo dowlad baan oo lama hadli karo wax ma soconayaan dowladdu hadday madaxii tahay dee madax hadduuna lahayn gacmo iyo midho ma socon karo qofka bilaadanka marka shicibkuna waa intii kale marka waxa weyn talada waa la wada leeyahay talada waa la wada leeyahay wixii dan inoogu jirto waan ka wada hadlaynaa ee wanaaga laakiin inaan ku kala tegna maaha ninna iyuuna ku talagelin markuu fikrad soo jeediyo taydii baa la qaadan waayo waan xanaaqay uu iska dudo waa qalad waayo waxa weeyaan intaa talada la isweydiinaya waa wanaag marka waxa weeyaan hadalku waxay noogu soo dhammaynayaa in aan danteenna war ayaynaan isku iloobin nolosha khiyaaligan joogno halkan ilaah bayna keenay inagu arsaaqay noogu talagalay midna salaakin yaan la iloobin waa dhulkaaga yaan la iloobin taa maanta waqti ma haysan in aan sida u degdegsan aan dhulkii u tegno weeyaan waayo waxaa la isweydiinaya awda sid maxay qabatay ilmuhu sanad markuu jiro dhakhtarka haddii la geeyo waxyaalo badan baa la weydiiyaa dowlad marka la dhisana waa sidaas oo kale maanta dowladda waxaa lagula xisaabtami karaa shicib ahaan marka ay dowladdu haysato budget ay leedahay ay wax ku qorsheyn weydo la yidhahdo wasaaraddaasi waxba may qorsheyn dowladdeeni marka waa qalad hala bedelo maanta se laakiin aan maanta markaa ni imanayo 5 saacadood baa inagu yimi toddobaadkii hore baan joogo yurub toddobaadka sareerkayga ma joogo horteed way yareeyeen haddana toddobaadka soo baxay waayo dantii waxaa ka weyn dantii samaroon baa ka weyn marka waxaa loo baahan nin walba oo inaga mid ah in uu waqtigiisa أو كحساب تمام وايو بري مركان كني هنانو إن وحي اللي صوب بحنا إن الدوينة وحي اللي قايب سنو ونو البشر على النقد هلا حساب تمام يبان ناس إجاه اللي يسكوني يبان نيجي سوي شقتي جدا سوي شقتي وساعات لو تلاقى لي أما شقتي لو دي بكسو بحي واي تكون شيء ما يسقى على وماي كل كلام بديلي الديار لكن ما أنت واحد كوجنا واسع سبع وايو ما أراك النمانتا وإن وحنا صوص سمعين وإن أخفك كتمات تاسنا إنك ينقول حدث وحنا اللون بهاي إن أن إسكوانينو أنت إنك مقال أن أشيرنو وح لا يراه قبيل هبل قبيل هبل مجد وإن أن إسكائلا لنا وح إنك لقات هذه وايو صدح وحبا مركا اي اسكو بيران قوت بيشان مركا اي كلا بحان سلاكين وي قوت جبان بيو هدا اسكو سو ودا بيران وا كو ودا رتين داد باي نقدان تسوناميغا waxa kiciyo kale waa biyo quwadaysto tornado dabayshu markay timaado wada aragtay dhul idil bay baabisa oo waxba laga arag وهذا لكن سحرة عيدة مركا أي اسكو بيرت عيد ذات كويل غدا مركا وحويان إنه هذا اسكو بيرنو أما إنه هذا إسكاشنو ونيمبول بنيكا كلا قعنت قبصدو وحوي ما قبص كنا أنت لما أنت حلقة جوك تعاون أو إنتنا ما أنت هدان جبي إنتنا ما أنت حق الرجل دمر بقى هدان يأودي كرينو أن هاينو إنه ما أنت نين ولا بقى طبعا كنا $1 حكادو
ومثليا وحوي بيشة دمبه دي قبل كي عودل سل يجيب لي وحر هل تضبط بديه يكحروبي marka waxa la inaga baahan yahay ficil waxa weeyaan waxa la togba taagi burubada qofkuna wax oo itaalkiisa dhaafsan waa yar karaahiyo laakiin mar bay soo gaadhaan nolosha waxa jira wadannada soo maray rag badan haween badan wada waxa barakaya gobolkiina haweenkaaba inagu yarba ya haweenkaaba inagu yarba Switzerland waa sidina soo kale dhalinyarta badan haweenku yari waxa weeyaan laakiin haweenku meeshooda way ka soo baxeen rag oo runtaas ku sheegno meel kasto ay joogaanba waayo awdal isteed waxay ka ogantay hadaa inay sheego taariikhdeeda dhalinyar bay ka aqontay iyo haween wadanna waxa revolution sameeya waa dhalinyar iyo haween iyo revolution ka sameeya marka waxa weeyaan war maanta waan joognaa maxaa laakiin inoo balana أنا مرة كان ميلتو ده هرنا وامش يجيبوا وشدة أذكر دقيقة ستة بارو ملايين يا أنا حيران سيدا يعني كحيران وحيجوا سيدا ما بعرفنا وايو الواحد وحورها باي ما يسق مرة واحد وين حيران وحي يقول عنا ولا حساب سنتي حسابته ما تقول حساب تبيت هذا ما أنت بقول كل يدي بتاعه ترى بقول كي كلنا كل يدي آوي ما حد كخبطه بقوليات كيف بستي حق ما دوليدي وحبان كو إدمناي وحبان كو كل يدي العتة وحبسوا فلي ما كل آوي دولة كرتان إن أن إني جا قناعتي رأى إني جا وحي أوعد إني هاد جانا واجب دوليدي ديكتاتورية مني أول الاستير لما أها دولة سلا دونيسون أما ده كذا كيا ليس أما شعب كذا كيا ليس وحوي دولة كل شيء إن أي دتك يدلك با أي قوة السنان يعدالة كدمبين إس إن دبوحين إس اعتقاد يمنمو أو سمرنا واحد عفسنا ونجري waayo dhibaatada waxa weey samarro ku ismeen dhabuuxiyo waxa dhici karta laba nin oo samarro hadii saaxiib yihiin oo nin kale oo saddexaad oo reer kale la joogo in uu sheekada ka qarsado kani tolkiya oo ka kale ka qarsoonaado waa dhibaatada ku dhacday samarro ka sitawaad waayo mali qadiyad taas ay naga maqan laakiin waxa ma dhalinyarto way nagu jirtaa marka waxa weeyaan hadalka tiin ku dheeraadi waxaad su'aal qabtaana diyaar baa inagu ahay ama dawladda aad ka rabtaan inaad ogaataan su'aalkaas way inii furan tahay waayo dimuqraadiyaddu waxa weeye qofku waa inuu dhadhamiyaa kelmadda dimuqraadiyad leedahay haddii su'aal la isweydiin waayo dimuqraadiyad ma jirto ama qofka shicibka ninka dawladdii uu qancin waayo uu raali gelin waayo dimuqraadiyad ma dimuqraadiyaddu wax la dhadhamiyo qofku waa inuu dhadhamiyaa shayga dimuqraadiyadda waa inuu qofku dhadhamiyaa uu yiraahdaa hadda xor baana dhalinyar badan oo markii hore isku aragnay Frankfurt isku aragnay oo hadda barbaxay ka joogay waad arkaysaa shucuurtooda calankii ay arkeen ayay ku dheganaayeen waayo waxa ku tusaysaa in wuxuu leeyahay wax helay marka waxaan hubaa kaasoo kale in uu dareeda ka dhabayo ونفتي صور يمال كيسنا حدوها هي تانا ولا نجسوجي ولا إنه نجنا فديان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صوت المرة صوت ده مش حتى واحد من كمان واحد هذا هي هذيك ما تسمى المنشأ صوت بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا waxaan ka wada waqtiga oo muhiim ah oo yaalo waxa وسيلة الوجدان يقولون بيوتي أو جميع عندنا من المرة مثل ذلك واحد قال مهم قيام الشرط في حياتنا إنه في الوقتي سنة برضه قاتل في الكوجا يصدق هنسوي ذا سنوحي راح يمشي وصراحة مرة هذه صوت ضد جوه فرنسي إنه دخيل وراح عندنا بس التحي مثلا أنا كنت بس أنا لسه دحين سيدا هذا حي أنا وقت من ذهان غير مشاهد هذا المحي organization هذا المحي وبيعيا المحي بروكا صوت يسوع سنا بروكا صوت يسوع حنا بروكا صوت راحي فكر الوحياة وفرضنا كان هيسرين تاسو في كيف هو ده تورا وفو حاجة فكر وقفوا بقية يطلعوا لك موضوع هذا مو رأينا وماشى فبيا الصعيد له يقدر ترخص in dadka dhammaantiin magaca ku hadlaysa ma isu wada keeno aw u bardhigo ujeedada ay leeyihiin iyo sida ay rabaan iyo sidii ay doonayaan isla musuq kaleeshiisay midda kale waxaan u talahay anoo hadal ku beeranay waqtigana dhowraya tafadhal بسم الله الرحمن الرحيم والله ستين حب إنه أنسى قوية نفسي ولا هكذا كان تبني في كتاب البشر في كتاب صحيح في كتاب صحيح ومبين سلاح الصلاة كان من خمسة markaa dalaluhu waxaan sidaa muhiim Soomaaliya oo dalal Soomaali fiican asashay dadka koox kasta aan fiican anigu wadaca oo fiican waa tin way Soomaaliya ayay usul ay mustaqbalka taasoo badan inuu yaactay shaqo iyo isku waxaa تضع كم بس ومنه كم بس وحب ولا لو تعاون وحل صلاة بالنوع أيوة بتعامل معه حتى يعود السوق إلى فيسا وصلاة الله وحب إذا كنت كوش صلاة هذا أيوة مو قاصد أيوة تخلص منه وأنا كأكتر لسنا السوق عارفة الله وعن تقول العود ونوك الحلو تصير وتحس نقول كاسبنا كتير وفي غير بلد أو كحلو كي كان دوب لا نسمع عارفين الصهيل سيارة وتعدي أنا يعطوك الصور حسين عن وهو قوي سلام تيجي سوق هلال أنا من لك يوم كذا تصير يا هذا الموضوع ما تحصل مكسر وهكذا افتمر بلويا أنا وجهك إنسان عوالي من كسر بيني أو كسر حال وهذا على سكول وحاول فيني أنا مثلا في خبرة مشاق صوتي وتدرى عليها مرة أنا أنا شخصيا سيد عيب وبرد لكن حياتي وحياة هاسي وحياة نسا وقبيت كل ويا
marka dhammaantiin aan u baahnayn هذه وهذا يحسبون ما قيسها لكن عالم قيسهم ساعتها وحكم بهم وحبنا الرياض انتبهوا حلوكم بريئة وحلك القصد ساعة الله ومن الفارسين صوت حولي لك صوته ويدعى ويحبوك صوت الحاول في المدينة بس عايز كثير يوسع سنين ساعة ولد وإلى الجنود شنو وعن قرد المرشدة وهذا وفي السنة هذا وحكي النقطة تصور والله مهرب ساعة ولد لا يحيو لا يحيو أو في السنة ما تنجح وبحيث السنة مسكين وتياسي بكاسي والله أيضا سلامينا وبتجمع فوقنا وأنا بحب على الهد وبتجمع أنا كل يعتني وهذا صار هذا الكلام والله سيدي معاك هذا بسيط ورئيسي هذا كقيمة يتعيح سيدة قيمة يتعيح وتوقفوا أولا إنهم قاموا يحدون يوم تقرأني في السوق وقفوا وقفوا سوق على إنه طبعا أي شيء بيسمع أقول سلامات أقول الميكي يا وين كان السياق فيها؟ سؤال